بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الله يدين بركة ولا ليال إلهي دين نبت قلي ميل الله ماشى جوكتان الله يدين حريسته. وحنو كهذا أحكام تصومك سي صومك إنه نقض صومك شرعي جاها ورسولك إنه صوم يجري عليه الصلاة والسلام أجري حسناتنا إنه جه الله وإن إنه أجانا صومك أحكام تيسة أو واحد إنه جبرني أما إنه جتشبني إنه كفوا جانه waxa inaga dhaawacaya ajarkeena aynu ka fogaano waxyaabaha muxaramaadka iyo karaahiyada aynu ka fogaano marka ahkaamtaas insha Allah taala ayaan isku baraarujinayna aan ka wada faa'iideysano dhamaanteen marka koobaad soomka hadaynu taariif ka bixino taariifka soomka waxa la dhahaa waxa weeyaan ramadaan baa laga keenay marka hore mina ramdigan waxa la dhahaa cagagubiyada dirgaha marka ay dhashaan meelaha kulaylaha ay joogaan oo cagaha ay ka gubiyadaan ayaa la dhahaa marka ramadaan waa shiddatul harri kulaylka daran soonkana marka waxa uu gubaya markaas dunuubta ayuu gubaya yani qofka dunuubtu sameeyay iyo xumaantu sameeyay ayuu gubaya soonki markaas qofka wuxuu noqonayaa qof nadiif ah oo aan dambi lahayn marka ramadaanta saas laga keenay kulaylkaas ayaa laga keenay oo dunuubta ayaa Ilaahay naga dhaafaya soonku marka waa farad kamid ah shanta tiir islaamka ayuu kamid yahay Ilaahay baana inagu farad yeelay sidoo ummadii horeba ugu farad yeelay marka soonka waxa la farad yeelay bishii Shacbaan sanadii labaad oo hijriga rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam markuu ka soo hijrooday Makka oo 2 sano oo Madiina joogo sanadii labaad oo hijriga rasuulku oo Madiina jooga ayaa markaas la farad yeelay soonka waxa kale oo la farad yeelay zakada isla sanadii labaad ayaa la farad yeelay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu soomay 9 Ramadaan ama 9 soon ayuu soomay kabacdina waa geeriyooday kaleey salaatu wasalaam ilaa rasuulkeena sanadii 11aad oo hijriga ayuu dhintay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam soomkan waxa la farad yeelay sanadii labaad oo hijriga inaga waxa laga yaabaa inaynu soonay 20 sano 30 sano 40 sano qaar 50 sano amri Ilaahayna siiyay iyo sooman fara badan nabigeena kaleey salaatu wasalaam 9 soon kaliya ayuu soomay sababtoo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam markii hore isagoo 40 jira 40 sano markuu dhameystay ayaa loo waxyooday diintan waxay soo degaysay 23 sano 13 sano oo Makka joogay soonku farad maba ahayn 13 sano oo rasuulku Makka joogay 10 sano waliba ugu horeeyay soonka iyo salaada midna farad ma ahayn lama waajibin 10 sano markuu rasuulku dadka diinta ugu yeedhay oo tawxiidka ugu yeedhay oo 10 sano u dhameystay ayaa salaada lagu farad yeelay isagoo 3 sano marka Makka ku tukanay ayaa waxa la amray inuu hijroodo 13 sano ka bacda ayaa rasuulku hijrooday 2 sano markuu joogay marka Madiina ayaa soonka lagu farad yeelay zakadana markaas lagu farad yeelay 9 soon baan rasuulkeenu soomay kaleey salaatu wasalaam soonka marka luqada carabiga waxa lagu dhahaa al-imsaak af haysasho inaad wax joojiso socodka hadaad joojiso wuu soomay baa leeyahay socodku ka soomay hadalka hadaad joojiso sumtu anil kalaami hadalkii baan ka soomay waad soontay cuntadii hadaad iska ilaaliso afkaaga ka ilaaliso waad soontay cabitaanka hadaad ka ilaaliso marka soonka luqada carabiga waxa al-imsaak joojin hadalka jooji socodka jooji يعني maartay cuntada jooji cabitaanka jooji galmada iyo jimaaca iska jooji wax allaala wixii dambi iska jooji oo dhan imsaak baa la af haysasho ama joojin laakiin quraanka ama sunnada marka la fiiriyo diinteena soonka waxay u taqaanaa sharcan waxa weeyaan at-ta'abbud lillah ilaahi in la caabudo waa amal ilaahi lagu caabudayo bi imsaakin adigoo iska ilaalinaya عن الأكل عntadii والشرب cabitaankii وصائر المفطرات iyo dhamaan waxyaabaha wax afuriyo dhan min طلوع الفجر waa bariga laga bilaabo ilaa غروب الشمس ilaa inta qoraxdu dhacayso yani soonka sharciga waxa weeyaan qofku aroortii markuu waagu bariyo la adimo inuu joojiyo cuntadii iyo cabitaankii inuu joojiyo galmada iyo jimaaci inuu joojiyo wax allaala wixii qofka afuriya isagoo cibaadeysanaya soonku waa cibaado waa rugni tiirarka islaamka kamid ah isagoo Ilaahay ugu dhawaanaya ayuu wuxuu joojinayaa cuntadii iyo cabidii iyo wax allaala wixii soonka ka jibinay laga bilaabo waa bariga ilaa inta qoraxdu dhacayso soonka sharciga waa kaas marka maxaa kale soonka sharciga u baahan yahay niyo ayuu u baahan yahay inaad marka hore soonka niyoto oo habeenkii niyo ku seexato hadaan habeenkii niyeysana xilliga suxuurta aad soo kacdo taas niyo kugu filan hadaan suxuurtiba aad tiraado anigu cunto ma rabana waqtiga aadaanka hore intaan la gaadhin aadaanka hore hortiisa inaad niyoto markaas niyo u baahan yahay wuxuu kale u baahan yahay iimaan inaad rumaysan tahay inuu yahay tiir kamid ah tiirarka islaamka inuu waajib yahay Ilaahay aad ugu dhawaanayso waxa kale oo xukunkiisa aan tilmaamayna soomka waa waajib weeyaan waana farad weeyaan
ووحا أدليل إلهي سبحانه وتعالى وحي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وردتك المؤمنين تهايو إلهي صوم بإذنكو واجبي وإذنكو فرد يالي سيدا لوغو فرد يالي أمدي إذنكو الرئي رسول كان وحي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 دينة إسلامك 5 تير أيها لغو لسه وحكم ذا 5 تير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلهي إنات رميسو أو قرته نبي محمد إنات قرته أو رميسو عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة صلاة إنات أوكتو وإيتاء الزكاة زكاة إنات بحسو وصوم رمضان وتيرك أفراد تيرك إسلام بشر رمضان إنات صومته وحج البيت بيتك علينا حجده مركا صومك وتير كمذا تيرك إسلامك ولا ليه بشر رمضان مركا علماء waxay isweydiiyaan oo ay dhahaan bishar Ramadaan markay soo gasho ama ay soo gali rabto habeenka koobaad qofka ma hal niyo ayaa ku filan mise habeen walba gaar buu u niyoonaya culimada qaar waxay leeyihiin habeenka ugu horeyso Ramadaan ay soo galayso baa qofku wuxuu niyoonayaa 30ka bishaba inuu soomeeyo halka niyana ku filan niyadii buu ku wadaya marka saasuu ku soomaya bisha ku dhamaysan qaarna waxay leeyihiin maya wax fiican habeen walba waa cibaado madax bannaan maalin walba soonkeedu waa soon madax bannaane qofka cudurdaar baa ku iman kara safar baa ku iman kara xanuun baa ku iman kara qof dumar haday tahay dhiig caada ku dhici karta bisha Ramadaan hal mar qofku niyoonine habeen walba niyadaha ku seexdo caawad midna waa niyootay waa suxuratay waa soontay maalintii hadana waa afurtay soomaha habeenkii laba hadana suxurtii u soo kac niyo hadana ku soo toos habeen walba inaad niyoota marka fiican habeen walba inaad bisha Ramadaan si gaar ah u niyooto maalinteeda inaad soomayso niyadina maxaa kaaga filan suxurta kaaga filan qofkii suxurta u soo kacay waa niyooday dadka qaar waxa dhihi jireen nawaytu sooman qadan nawaytu waxa niyeysnaayeen bay carabka ka sheegayeen taa looma baahna nabiguna ma sameyn calayhi salaatu wasalaam axkaamta islaamka ama shariicada islaamka marka la fiiriyo rasuulku rugni uu ku dhawaaqay waa xajka marka la xajeeyo waxa la oranayaa labayka xajjan wa umratan xajki ilaahay waxaan xidhay xaj ayaan niyooday oo xidhay xajka waa lagu dhawaaqaya laakiin axkaamta kale oo salaada haday tahay Allahu akbar ma ku xidhanaysa waa niyoonaysa soonka haday tahay suxurta kaaga filan ama qalbiga inaad gashato inaad soomaysid uma baahna marka inaad afka ka sheegto dadka qaar wali salaada maxay yiraahdeen usalli farad salaatil asr 4 rak'aat waxaan tukanaya salaada casr oo 4 ragcadood ayaan niyeystay yaad u sheegaysa warbixintii riboodka yaa siinaysa ilaahay wixii qalbiga ku jiro ogiye wixii aad qarinaysid buu alle ogiye marka maxaa laga rabaa qalbiga inaad ku qabato salaada casr oo 4 ragcadood inaad tukanayso Allahu akbarna ku xidhato saasuu nabigu sameeyay calayhi salaatu soonkana qalbiga ka niyoonaysa ama suxurta u soo kacaysa halka habeen walba inaad niyooto ayaa lagaaga baahan yahay marka waxa kale loo baahan yahay ikhlaas iyo ilaahay dartiin in u soono dadka qaar waxa laga yaabaa inay u soomaan hebel waa sooma hebel maartay sadaqo bixiya acmaasho dhan ba waxa la rabaa in istusnimada laga ilaaliyo hadaad salaad tukato ilaahay dartii u tuko oo u badaxtir istusnimada iyo ismaqashinta iska ilaali hadaad sooman tahay ilaahay dartii u soon ilaahayna ajar ka niyeyso hadaad sadaqa bixiso ha odhanin hebel sadaqo bixiya hebel waa deeqsi ha niyeysane maxaa niyoota ilaahay dartiisa inaad u bixinayso oo dadka muuminiinta ilaahay muxuu noogu sheegay wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wayatiman wa asira cuntada ayay qoodinayaan iyagoo ilaahay jecel miskiin bay baahan bay wax siinayaan mid la qafaashay oo gaala oo maxbuus ay wax siinayaan haddana maxay odhanayaan la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura idinkama rabno inaan noo mahad celisaan idinkama rabno inaan noo shukri naqdaan ilaahay un baanu ka rabna marka qofka muslimka hadaad amal saalix sameeyso ilaahay baa la rabaa inaad wax kaga doonayso hadaad salaad tukato salaada ilaahay ajar kaga raadso hebel waa tukada iyo bini aadanka istusnimadiisa ka fogow soonkuna waa saas oo kale waxa laga rabaa marka qof waliba ilaahay darti maartay inuu soomo ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay sidee ku sugnaanaysa marka bisha Ramadaan laba arimood bay ku sugnaanaysa yaani bisha Ramadaan hadii bisha Shacbaan ay 30 ku dhamaato 30 bari hadii ku dhamaato iyadoo aan bisha Ramadaan la arag waynu soomina sababtoo ah bilaha islaamka bil 30 bari ka badan kuma jirto bilaha islaamka ama waa 29 bilaha hijriga ama 30 bay ku dhamaadaan saa dartii hadaan hubsano bisha Shacbaan inay tahay 30 Ramadaan waa sugan tahay barina waa la soomay laakiin hadii yoom shak ay noqoto oo maanta leeyahay Shacbaan maanta waa 30 iyo ma 30 ma aha يوم الشك لما سوميو رسول كان inaga reebay عليه الصلاه والسلام inuu soono يوم الشك marka bisha Shacbaan haday dhameystiranto maalinta ku xigta waa Ramadaan way sugnaanaysa maxay kale ku sugnaanaysa ru'yatul hilal bishi in la arko yani qof muslima oo caadil
ama laba qof oo muslima oo caadil ah hadduu arko bisha Ramadaan waa la soomaya marka adduunka meel ay rabaan baa ka joogaan haddii laba qof oo Kenya joogta ay arkaan oo muslimiin oo caadil ah caadilka waxa laga wadaa qof aan faasiq ahayn iyo tale qof aan been badnayn qof aan khamri iyo qaadka cunin yani qof aan tuug ahayn qof aan zaani ahayn yani qofku hadduu balwad leeyahay ama qaad iyo sigaar iyo mukhadaraad isticmaalo caadil maaha markhaatigiisa lama qaadanayo hadduu zaani yahay oo sinaysto markhaatigiisa lama aqbalayo haddii uu yahay maarata mid tuug oo dadka xada markhaatigiisa lama aqbalayo yani qof dunuubta waaweyn iska ilaaliye weeye marka fisqiga iska ilaaliye beentii buu iska ilaaliyey tuuganimadii buu iska ilaaliyey khiyaamadii buu iska ilaaliyey balwadii buu iska ilaaliyey kaasaa caadila marka 5 waqti buu tukadaa marka qof caadil oo muslima hadduu dhaho bishii Ramadaan waan arkay waynu soomaynaa laba qof hadday arkaan waa lagu soomayaa adduunka meelay joogaan haddii Sacuudiga laga arko haddii Turkiga laga arko adduunka meel ka mid ah waxa laga rabaa inay dad muslima ka arkaan ama laba qof ama ka badan ba hadday arkaan ru'yatu hilaal oo rasuulka nabi alayhi salaatu wasalaam aragtina ku sooma aragtina ku afura haddii aragtidiiba la waayo oo daruur ay meel walba qariso bishii Shacbaan baynu dhamaystireenaa waxaynu odhanaynaa maanta bishii Shacbaan waa 30 Ramadaan ma aha ilaa bishii lama arag Shacbaan ba 30 kala dhamaystiraya haddii 30 Shacbaan dhamaado Ramadaan ama hal la arko ama la arkin saasa lagu soomay marka ama aragti baa lagu soomay haddii la arko haddii la arki waayana Shacbaan baa la dhamaystiraya yawm shaki lama soomayo markaas waay marka waxay leeyihiin culimada islaamka shahaadatu waahid hal markhaati way ku sugnaataa bisha Ramadaan haddii hal qof oo muslim caadil la helo oo uu dhaho bishii aniga arkay waa lagu soomayaa marka waxa jirta shuruud baa jirta marka shuruud laga rabo qofka soomaya markaas shuruudu wujuub siyaam baa la dhahaa marka waa shuruuda uu soomku ku waajibo cidii shuruuda laga helo ayaa soomku waajib ku yahay markaas xikmadda soonka loo jideeyay waa alla ka cabsiga horta ilaahay muxuu yiri la'allakum tattaquun waxa mudantiin inay ilaahay ka baqdaan oo qofku waxa ogtihiin bilaha kale in Ramadaan aan soo gelin qofka maalinta waxa laga been buu sheegaya dad buu xamanaya yani hees iyo music buu dhageysanaya laakiin Ramadaan markay soo gasho muxuu leeyahay waa soomana igada dambigii buu iska ilaalinaya alla ka cabsiga qalbigiisa galay maxaa kale oo haddana uu kaalmeynaya Ramadaanta inuu dambiga iska ilaaliyo shayaadiintii dadka duufsanaysay oo madaxa adkayd baa laga xidhxidhay albaabadii jahannamo iyo jaxiimana waa laga xidhay albaabadii jannadana waa loo furay saa darteed maadaama shaydaanka qofka laga xidhay alla ka cabsi buu ka faa'iideeyaa soonka oo waxa arkaysa maalinta la sooman yahay qofku ma rabo inuu been sheego warigada been sheegi maayo waa soomana warigada dadka xaman maayo waa soomana warigada maanta sigaar cabi maayo maanta waa soomana la'allakum tattaquun soomka marka xikmadda loo jiday waa inuu ilaahay ka baqno soontii markay dhamaatana maxaa laga rabaa inuu qofka ilaahay ka baqo mar walba dadka qaar baa arkaysa maanta dhan buu soomanaa sigaar buu ku afuraya iyo baqaad iyo xaaraan waa dambi maanta soo ilaahay uma soomaneen timir iyo biyo ku afur sambuuskaaga cun bariiskaaga baastaada cun rabbi mar hadaad u soomaneedo maanta ilaahay ka baqaysi haddana ilaahay ka baq sigaarka sidii xaaraan kaaga yahay marka shuruudaynu sheegaynaa marka xikmadda soonka loo jideeyay waa la ka cabsi weeyaan iyo inaynu dareenno masaakiinta iyo fuqarada inay gaajoonayaan oo dad badan baa jira oo taajiriin oo iska dhargsano maalin walba dhargayo daaca qurmaya laakiin bisha Ramadaan markay xoogaa gaajoodaan markaas uu xasuusanaya odhanaya bal miskiinka maalin walba ma aragtay iska soomano waxba haysan kaasaa kaa lite maanta u damqo oo waxsi marka miskiinka gaajada uu dareemayana waa dareemaysa adiga markaas u naxariisan ilaahina waa ka cabsanaysa labada xikmadood baa soonka loo jideeya iyo xikmado kalena way jiraan marka shuruudda hadaynu ka hadalno shuruudda wujuubi siyaam shuruudda uu ku waajibo soomku waxa weeye al-islaam qofku inuu muslim yahay qof gaala soomku ma waajibin maxaa laga rabaa gaalka inuu ashhaato ayaa ku waajibtay oo tawxiidka qiro marka hore ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah gaal hadduu inala soomo soomka alle kama aqbalayo ila waaba kaafir oo tawxiidkiiba lama imaanin gaal hadduu inala tukado masaajidka soo galo ilaahay salaada kama aqbalayo sababtoo maba ashhaadan ma weyse qabo ma niyoonin salaadu niyo u baahanta iimaan bay u baahanta ma garata marka shardiga koobaad waxa weeye al-islaam qofka soomaya waa inuu muslim yahay kaafirkii iyo gaalkii soon lagama aqbalayo ka labaadna waa maxay al-aqlu inuu aqli leeyahay qof aqligiisu taam yahay qof majnuun oo waalan ilaahay soon kama aqbalayo soonna laguma waajibinba ma garata kuguma waajibinba hadduu qofku waalan yahay marfuucu qalan baa la dhahaa oo saddex qof shareecadiina way ka dulqaaday qalinka ilmaha yaroo sabiga
maarad ilaa uu ka qaangaadho lagama rabo wax soona lagama rabo ilmo yaroo sabiya 10 jir inkastoo 10 jirka saxaabadu ay soomin jireenba qofka 10 jirka ama 12 jirka hadduu awoodo soomkan la faraya hadduuna awoodin cuntadiisu iska cunaya laakiin 15 maalintu gaadho waajib ku noqonaysa marka qofka majnuunka ah oo waalan waxba waajib kuma aha qofku waa inuu caqli leeyahay marka al-aql shardiga saddexaad waxa weeye al-buluq inuu qaangaar yahay oo 15 uu gaadhay shareecadeena marka la fiiriyo saddex arrimood baa lagu qaangaadaa marka qaarna 5 arrimood baa laga dhigaa saddex arrimood ugu muhiimsan waxa weeye rag iyo dumarba 15 hadduu qofka muslimka gaadho waa qaangaadh soom baa ku waajiba waxa kaloo lagu qaangaadaa isaga qofka 15 aan gaadhinba haddii biyaha manida lagu arko oo wiilkii waa riyooday oo isku jinaaboobay manidii buu isku arkay waa qaangaadh wey gabadhi saas oo kale haddii ay riyooto oo isku jinaaboto manid isku aragto waa qaangaadh wey maxaa kaloo lagu qaangaadhaa timaha xagga hoose oo farjiga agtiisa ka soo baxa xubinka taranka timaha hareeraha hadday ka soo baxaanna qofka isagoon 15 ba gaadhin waa qaangaadh dadka qaar baa laga yaabaa 13 inay kaga soo baxaan timaha qaar baa laga yaabaa 13 inay biyo doolis noqdaan biyihii manida 13 kaga yimaadaan 12 waxa kaloo dumarku ay ku qaangaadhaan dhiigga xaydka inuu ku dhaco gabadha iyadu 10 jir haddii dhiigga caadadu xaydka ku dhaco waa qaangaadh weeyaan marka soonka waa la amraya waajib bay ku tahay Caaisha radhiyallahu anha 9 jir bay ku qaangaadhay rasuulkuna markaas uu la aqal galay calayhi salaatu wasalaam marka gabadha iyadu 9 jir hadday qaangaadho waa la guursan karaa 10 jir hadday qaangaadho waa la guursan karaa gabdhaha inta badan qurbaha ku dhashay ama ingiriiska ama yurub ama america oo firinjeerka loo buuxiyey oo laga dhargiyey chickenka iyo jibsiga oo markiiba bararay oo iska cayilay iyadoo 10 jir waa la aroosi karaa laakiin wadamada gaalada dambi bay ka tahay laakiin waddanka islaam haddaa la tagto waa ku aroosi kartaa iyadoo 10 jir ilaa waa naag qaangaadh waaye marka waxa weeyaan qofka inuu qaangaadh yahay oo qofkan qaangaadhin يعني صومك كما واجبين وين محو كلا صومك واجبية القدرة على الصوم صومك إنه قفك أوده قف داء وأن أود لهين أما قف جرن صومك ما واجبين ويسكا أفريا مركا لو سوق ليني محو كلا مركا قفك إن صومك واجبة الإقامة قفك إنه دقيه مقالة فلا يجب على المسافر قف مسافر كما واجبين حداد مسافر تهي والسفر كان كل بطونين ويكون بلانتا إنها تصونته maxaa kaloo ku banaan inaad iska afurto marka waxa weeyaan shuruudda uu soomku ku waajibo waxa weeye al-islaam inuu qofku muslim yahay oo gaalkii kuma waajibin al-aql inuu qofku aqli leeyahay oo qof waalan kuma waajibin al-buluq inuu qaangaadh yahay oo calaamadihii qaangaadhka lagu arko oo qofan qaangaadhin soomku kuma waajibin al-qudratu cala soom soomka inuu awoodo waxa laga wadaa oday da' iyo islaam da' oo caajisa oo aan gaajada xijisan karayn kuma waajibayo maxaa kaloo noqon karta naag umushay qof umulay oo dumar oo ilmo yar nuujinaysa ama nafteeda u baqaysa ama ilmaha u baqaysa ma awoodo kuma waajibay iyadana markaas dib bay ka soo qalaynaysa ama naag uur leh oo xaamilo ah 9 bilood ama 8 bilood iyadana de awood uma hayso al-iqaamana maxaa laga wadaa inuu magaalada degan yahay dadka qaar markaa waxay dhahaan dadka qaxoontiyada jooga waa musaafiriin 30 sano ay qaxoontiga degan yihiin markaasay ilmo ku dhaleen ilmaha ku dhaleen baa ilmo ku sii dhalay markaasay kule musaafir baan nahayo soom laguma waajibin kuwaasi musaafir ma ah magaalada haddaad degan tahay oo aad joogto ama guri ka karaysato musaafir ma tihid marka musaafirku waa niyatu safar waa qof wiigan baxaya ama 2 wiig ka bacdi baxaya ama 3 wiig ka bacdi baxaya laakiin bilba hadday kula dhaafto dee musaafir adeeroo ma tihid sanad baad degan tahay 2 sanaad degan tahay 10 sanaad degan tahay musaafir ma tihid musaafirku waa qof tigidka u go'an yahay oo raba inuu baxo wiig ka bacdi ama berri ama saa dambe ama safar dee dariiqii safarka ku jira oo tigidkii goostay oo ama baabuurkiiba saaran ama diyaaradii saaran marka waxa weeyaan al-iqaama haddaad meesha degan tahay ilaahu ma tiraahdo sanad baan deganaanaya wuu kugu waajibaya soom falaa yajibu cala almusaafir laakiin qofka musaafirka waajib kuma aha laakiin wuu bannaanta inuu soomo waxaa kaloo jirta shuruudu sixa shuruud uu ku ansaxo soomku shuruudu sixati soom taa hore waxaa la dhahaa shuruudu wujuubi siyaam shuruudda uu soomku ku waajibo tanna waxaa la dhahaa wuu ku waajibay laakiin sixadii iyo in laga aqbalo shuruudda baa ku xidhan haddana shuruudu sixa shuruudda lagu aqbalo soomka waxa weeye al-islaam inuu qofku muslim yahay waa kow labada dhinac bay ku jirtaa shardigaas inqitaacu dami alxayd gabadhii dhiiggii caadada inuu ka go-ay hadday tahay gabadh muslimada oo qaangaadh ah oo dhiiggii caadada uu ku dhaco ma soomayso ilaa ay dhiigga iska daahiriso oo ilaahay baa soonkii ka dulqaaday laakiin dib bay kasoo qalaynaysaa 7 beri ama 5 beri maalmihii lagu lahaa ma garat
laakiin gabadha mar haddii dhiigga uu ku dhaco maalmaha dhiigga ama caadada ay qabto mana soomayso salaadna ma tukanayso rasuulkeenaana ka reebay calayhi salaatu wasalaam gabadha muslimadda ilaahay baana dee amray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa weye inqidaacu dami alxaydi walnifaas gabadha dhiigga caadada hadday qabto soonka lagama aqbalayo marka maxaa laga rabaa dhiiggii caadada inuu ka dhammaaday oo ay daahir tahay shardiga koowaad waa inuu qofku muslim yahay shardiga labaad gabadhu inay daahir tahay oo dhiiggii caadada ay daahir ka tahay markaasay soomaysa ragga laakiin de mar walba iyaga dhiigba kuma dhaco mar walba iyaga shardigaas waa way ka baxayaan shardigaa kuma jiraan ragga maxaa kaloo laga rabaa dumarka dhiigga nifaaska oo dhalmada inay daahir ka tahay oo gabadha matalan hadday umushay waa inay 40 baxday oo dhiiggii dhalmada ay ka qubaysatay laakiin gabadh umula oo dhiiggii dhalmada uu ka socdo soom iyadana kuma waajibin markaas shardiga saddexaad waxa weeye alcaqlu qofku inuu caqli leeyahay oo qof waalan soon kama ansaxayo qofka inuu caqli leeyahay soonka waa ka ansaxaya marka qofka inuu muslim yahay soonka uu ka ansaxaya qofka inuu daahir yahay soonka uu ka ansaxaya kan afraad waxa weeye التمyiiz inuu wax kala soocayo oo wax kala garanayo tamyiizka waxa laga wadaa intaan wiil yar oo 8 jir ayaa soomay laakiin caqligiisa waa taf wax walba uu kala garanaya ama waa 10 jir wax walba uu kala garanaya wixii xun iyo wixii fiican buu kala yaqaan tamyiiz baa la dhahaa tamyiizkana uu ka ansaxaya soonki hatta xajka hadii la geeyo uu ka ansaxaya laakiin markuu qaan gaadho waa inuu mar labaad soo xajiyo wey kashanaad waxa weeye anniyatu min al-layl habeenkii waa inuu qofku niyoodo habeenkii inaad niyo ku seexato inaad berri soomayso ilaa waxba dhici karta inaad suxuurta u toosi weydado hurdaba ay kula tagto saa darteed maxaa fiican cashahaba markaad tukato taraawiixda tukato oo aad cashayso inaad iska niyooto inaad berri soomayso oo aad niyo ku seexato waxyaabaha sunnaha ah aynu tilmaamayna markaa soonka waxa sunnaha as-suxur in la suxuurto oo rasuulkeena xadiis badan buu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi weliba tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka war suxuurta baraka ayaa ku jirtay adigoo xataa aan maalintii gaajo ku qaban ilaa dad baa dhaha maalintii ma gaajoonno xitaa haddaan maalintii gaajo ku qabanayn ajarka iyo barakada helaysaa haddana wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soonkeenna iyo soonka ahlu kitaabka waa kiristaanka yuhuudda soonka yuhuudda iyo soonka muslimka waxa u dhexeeya waa suxuurta oo soonka yuhuudda lama suxuuran jirin soonka kiristaankana lama suxuuran jirin saa darteed yuhuuddi baa khilaafaysa inaad yuhuudda khilaaftana ajar iyo xasanaad baad ka helaysa marka waxa weeyaan inaynu suxuuranno waa sunne ajarna waynu ka helaynaa barakana waynu ka helaynaa waxaa kaloo layna ka rabaa oo sunno ah ta'khiiru suxuurta in dib loo dhigo oo xadiista qaar rasuulka wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay barako badan tahay suxuurta in dib loo dhigo innaga qaar maxay ku odhanayaan 4 habeenimo ama 10 saac oo habeenimo ayuu suxuuranaya markaasaa maxaa la adimaya 5 iyo 10 ama 11 saac baa la adimaya bal saacad baa u dhaxaysa ka waran saacad ka hor buu sii suxuurta sida barakada badan waa maxay suxuurta in dib loo dhigo oo aadaanka markuu soo dhawaado inaad suxuurato matalan aadaankii oo 20 daqiiqo ka dhiman tahay suxuuro ama 10 daqiiqo ka dhiman tahay suxuurta in dib loo dhiga khayr badan waxa kaloo sunna ah tacjiilul fitri afurka in la dedejiyo oo isla markii gabalku dhacba ila aadaanka haddaad maqasho oo magaalo joogtana aadaanka ku suxuuran waxaan leeyahay ku afuraysa haddaadan magaalaba joogin maxaa sameynay oo baadiyaba joogto qoraxdu markay dhacdo oo hubsato baad maaragtay afuraysa dadka qaar maxay sameeyeen reer baadiya xaadi baa weli muuqatay war xaadi yaa kuu dirsaday adiga qoraxdu markay dhacdo afur baa lagu yidhi ha timihii waa muuqdaane habeenkii weli ma madoobaane yaa ku yidhi ha madoobaado jahligaaga ayaa ku yidhi sooma marka waxa weeyaan haddiiba qoraxdu dhacdo aad hubsato inay dhacday ama aadaan aad maqasho waa inaad afurka dedejiso oo aadan dib u dhigin taasaa sunno ah oo rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam ummaddeedu khayr ka soo limayso inta ay dedejinayaan afurka in la dedejiyaa khayr badan waxaa kale oo sunno ah al-iktaaru min alcibaadaat cibaadooyinka inaynu badino noocyada cibaadaadka oo dhan ka qiraa'ati alqur'aan qur'aan akhriska inaynu badino bisha ramadaan qofkii maalintii juz akhri kara inuu akhriyo kii 2 juz akhri kara inuu akhriyo kii 3 juz akhri kara inuu akhriyo ma garad dikrullah ilaahay dikrigiisa inaynu badino oo dikriga ilaahay maxaa ka mid ah laa xawla walaa quwata illa billah laa ilaaha illa allah subxaana allah allahu akbar alxamdu lilah adkaartaas iyo ducooyinka salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaynu badino waxaa kaloo loo baahan yahay qiyaamu leylka inaynu ku dadaalno oo habeenkii qofka uu tukado qofka xitaa aan tukan karayn dadka qaar waxay leeyihin taraawiixda jus baa lagu tukanaya waa ku daalaysa war gurigaagaba ku khayr badan inaad ku tukato 3 ragcadood haddaad tukato oo ilaahay dartii u niyeysato ajarka waa helaysaa salaatuleylka 5 ragcadood haddaad tukato waa helaysaa 7 ragcadood 9 ragcadood 11 ragcadood inta adiga aad awoodo
koob iyo 20 ragcadood tira go-an ma laha salaatuleil laakiin maxaa ugu yar 3 ragcadood 2 ragcadood baa tukatay iyo 1 ragcadood oo witira aad gaar u tukato marka qiyaamul leylka aanu ku dadaalno waxa kale oo loo baahan yahay oo sunna inaynu ku dadaalno sunan rawaatib salaadaha sunna oo rawaatibta la dhaho rawaatibtu waa maxay doorka 4 sunna baa ka horeysa 4na waa ka dambaysa inaan ku dadaalno casarka 4 sunna baa ka horeysa 4ta inaan ku dadaalno maqribka 2 ka horeysa 2na waa ka dambaysa inaan ku dadaalno salaada subax 2 sunna baa ka horeysa inaan ku dadaalno waliba 2 ragcadood salaad subax ka horeysa rasuulkeen wuxuu alayhi salaatu wasalaam khayru min ad-dunya wama fiha adduunka iyo wixii ku dhex jiraba 2 ragcadood baa ka khayr badan waa 2 ragcadood oo sunna oo salaad subax ka horeeya marka waxa weeyaan salaadaha rawaatibta waxa la dhahaa salaadaha faradka ah kuwa ka horeeya ama kuwa ka dambeeya inaan ku dadaalno waxa kale oo loo baahan yahay bisha ramadaanta iyo soonta inaynu ku dadaalno oo sunna ah sadaqada oo rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam deeqsigu waa bil walba waxbuu bixin jiray laakiin bisha ugu deeqsisana oo wax bixin jiray bisha ramadaan bay ahayd marka waxaan leeyahay dadka tujaarta oo ilaahay wax siiyey ama hantida haysta ama qaniga hodanka ah war qaraabadiina iyo ehelkiina iyo masaakiinta u gacan furaada oo sadaqada ku dadaala oo dadka afuriya oo maaragtay bil baaba lagu jiraa hadda bandow aho maaragtay dadkii adduunka kala xidhmee oo faqri iyo gaajo badan jirtee dad badan oo masaakiin ah bilaa camal oo shaqaysan jiray waxaan leeyahay dadka ha laga warhayo dariska waxa la siiyo maaragtay qaraabada waxa la siiyo agoonta waxa la siiyo kuwa xariiqa qaxoontiga jooga ha loo damqado haddii kale maalkiinaas waa laydinku cadaabaya haddaad masaakiinta siin weydaan oo sadaqo ka bixin weydaan cadaab baa ku gelaysaan ogaada maalkiin marka waxaa la rabaa khayrka in la bixiyo oo maaragtay sadaqada la badiyo oo dadka la afuriyo waxaa loo baahan in lagu dadaalo cadayga bisha ramadaan oo cadaygu waa sunne dadka qaar waxay odhan jireen fuqahadii hore iyo shaaficiyadii hore cadayga gelinka dambe waa karaahiyo duhur wixii ka dambeeyaa la cadayan hormaya saas maaha sida saxda waxa weeye salaad walba in loo cadaydo 5 salaadoodba cadaygana waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkana wuxuu yidhi cadayga afkana wuu daahiriyaa rabbina wuu raalli geliya saa darteed waxaa la rabaa afkaaga oo nadiifa inaad qur-aanka ku akhrido afkaaga oo nadiifa inaad ku ducaysato afkaaga oo nadiifa inaad dadka salaada la tukato huuradaada ilaahay danka ma laha faa'iido iyo ajarna ku heli maysid ajarka maxaa lagu helaya waa calooshu markay marato aad gaajooto urta caloosha ka soo baxaysa taasa ajar lagu hela taasaa ilaahay agtiisa biriixil miski barafuumka ka udgoon laakiin huuradaada ajar ku heli maysid saa darteed yaan la isku khaldin urta ajarka lagu helayo oo ilaahay agtiisa barafuum ka udgoon waa caloosha markay marato neefta yar iyo riixda yar ka soo baxaysa laakiin ilkahaaga inaad mar walba daahiriso waa waajib oo maaragtay aad sunno weeyaan sunna mu'akkada weeye weliba xaaladda uu taqyiiru lfami afka hadduu isbedelo in la cadayo waa sunno adag weeyaan marka waxa weye 5 salaadoodba inuu qofku cadaydo sunnaha uu ku dadaalo maaragtay cadaygaas waxa weeyaan waxaa kaloo loo baahan yahay yacni aadaanka haddii qof baa matalan lagu aadaamayba isagoo janaabo qaba muxuu samaynaya yani xaaskiisiiba habeenkii la seexday wuu iska suxuurtay laakiin isagoo aan wali qubaysan oo janaabadii qaba baa lagu aadaamay wuu qubaysanaya soonkiisana halkiibuu kasii wadanaya yani janaabadaas aadaanka kusoo gaadhay soonkiisi waxa ma yeelayso ilaa janaabada habeenkiibuu sameeyey laakiin qofka haddii isagoo falkii ku dhex jira oo isagii xaaskiisii oo shaqadii ku jira lagu aadaamo markiiba waa inay kala boodaan weeyaan hadduu iska sii wato soonkiisii waa ka buraya waa inuu dib dambe dee kasoo qalleeyo ma sii wadan karo kuwa biyaa matalan adigoo hadda afka ku haya oo cabaya haddii laguu aadaamo waa inaad koobka dhigto cuntadii adoo afka ku haya iska jooji saxankii bas intaa yar afku haysa haddaa rabto liq laakiin ha sii wadin marka waxa weeyaan ninkii isagoo jimaac samaynaya haddii lagu aadaamo isla markiiba inuu joojiyo wey markaana ka qubaysto haddii isagoo aan jimaacba samaynin oo janaabadii qaba lagu aadaamana aadaanka kabacdi buu iska qubaysanaya soonkiina wuu sii wadanaya soonkiisa waxa ma yeelayso marka waxaa kale oo loo baahan yahay inaynu ogaano qofka dumara haddii dhiiggii ka go-oba iyadoo aan la aadaamin baa dhiiggii ka go-ay laakiin weli aan caadadii ka qubaysan soonka way niyoonaysaa hadhowna way isdaahirinaysaa aadaanka kabacdi ama marka qoraxda soo baxdo kabacdi ay isdaahirinaysaa soonkeediina way niyoonaysaa way sii wadanaysaa arkaanta soonka waxa weeye markaa 2 tiir buu leeyahay soonku tiirka koowaad waxa weeye anniya inaad niyooto inaad soomayso tiirka labaadna waxa weeye wax allaala wixii soonka jabinayay hadday cunto tahay hadday cabid tahay inaad iska ilaaliso laga bilaabo waa beriga ilaa inta qoraxdu dhacayso waxaa laynoo ka baahan yahay xifdu lisaan carabka inaynu ilaalino oo hadalka badan ka ilaalino oo beenta ka ilaalino oo xanta aynu ka ilaalino cayda iyo aflagaadada ka ilaalino waa waajib weeyaan qofkii wax xanta isagoo sooman dembi weyn oo kabiira ayuu ku dhaca farka xaaraam weyn inaad taabato iyo inaad faraha geliso iyo inaad cunto xaaraam buu kaaya
tanina marka sida doofaarku xaaraam kaaga yahay bay laadhuudu xaaraam kaaga tahay marka ha laga fogaado rabadaanta marka lagu jiro laadhuuda iyo khamaarka iyo wixii lamida maxaa kaloo loo baahan yahay aliftaaru cala rudab inaynu timir ku afuro timir jilicsan oo qoyan baa lagu afuraa rabadaanta haddaadan timir helayn soo maaha biyaa lagu afuraa sidaasaa sunna ah rasuulkaana ina amray calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeyaad ku afurtaa timir jilicsan ha noqdo haddaad timir weydo biyo ku afur marka ka bacdi sambuuskaagii iyo waxaagii usoo noqo waxaa kaloo loo baahan inaynu ducaysano qofku marka ugu horeysa la adimo 3 xabo timir marka cunto tira isdheerina cunto ayaa sunna ah 3 xabo timir marka cunto waa inaad ducaysato ilaa cuntadii kaama dhammaanayso oo sambuuski waa ku oolaya bariiskii baastada ha ku degdegin ducada ka muhiimsan xilligaas oo kale ilaahay ducada waa aqbala fursada qaaliga marka aan ka faa'iideysano markaynu afurayno waa inaynu ducaysano dadka qaar baa sambuuska ku gagabaya oo cuntadii maaragtay isku ilaawaya war iimaanka iska qaadan ducada ka muhiimsan ilaahay janno weydiiso ilaahay dambi dhaaf weydiiso ilaahay khayr adduunya khayr aakhira weydiiso waxaa loo baahan yahay marka inaynu waxyaabaha muxaramaadka oo dhan iska ilaalino adigoo sooman qof muslim ha dhibin xaaraan bay kaa tahay qof muslim ha caayin qof muslim ha la dagaalamin xaaraan bay kaa tahay xitaa hadduu qofku caayo innii saa'imun dheh anigu waa soomanahay soonteeda ilaashanaya kaama baqayo dheh aniga laakiin soonteeda ilaashanaya dadka qaar waxay leeyihiin fuliga alla malinaya xitaa haddaan soomanahay waa inaan iska celiyo war maaha u kaadi saas maaha qofka aad wax tir anigu waa soomanahay iskaga tagba marka hala caytamin ha dhibin maxaa kaloo loo baahan yahay qofka muslimka ah waxyaabaha dadka muslimiinta dhibaya inuu iska ilaaliyo soonka qaar baa waxay kusoo afurayaan basal iyo toon iyo waxyaaba uraya markaasaa taraawiixdii salaadii markaa la tukanayso ahaamiin markuu dhaho urtaasi kasoo uraysa rasuulkeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam qofkii basal ama toon cuna yuu naga imanin masaajidadeeda gurigiisa ha iskaga tukado marka haddii kale ha iska soo tirtiro oo dee koolgeediyo waxyaaba urta suuliya ha soo isticmaalo marka waxaa la rabaa dadka afqadhbuuna ha ku dhibin dadka basal ha ku dhibin dadka sogsaantaada uraya ha ku dhibin sinaba ha ku dhibin qofka muslimka waxyaabaha jira marka karaahiye ah soonka waxa karaahiye ah intuu qofka candhuufta ururiyo oo afka ka buuxiyo bushmaa u liso inuu hal mar ka siiyo dadka qaar baa saa sameeya markay haraadaan bushmihiisu intuu isku marmaro oo carabka saa u marmariyo oo candhuuf uu ka sameeyo buu hal mar xoogaa yaroo kuusa lama ogola karaahiye weeye candhuuf yar haddaad iska liqdo laguma diidana laakiin candhuufta intaad ururiso ha liqin waa karaahiyo waxaa kaloo karaahiye ah inaad ku xeel dheeraato luqluqashada hal mar luqluqo iska tuf hal mar qaar baa luqluqashadii kor halkan geynaya ilaa intaas markaasaa biyeeru ku fakanayaan lama ogolo sandaarsigana laguma xeel dheeraanayo markaad weysaysanayso biyaha sanka gelinayso fiif dheh laakiin markiiba soo daadi ilaa halka ha ku fogeynin ilaa biyo marka halka ku fogeyso afkii sanka way isku daloolaan waxbaa kugu tegaya marka taana iska ilaali waxaa kaloo laga fogaanaya waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a cuntadii aan ka fogaano cabitaankiina aan ka fogaano haddaad wax cunto si kasta wax u cunto adoo sooman soonkii waa kaa jaba haddaad wax cabto si kasta wax u cabto soonkii waa kaa jaba jimaac iyo galmadii aan ka fogaano oday 60 jira maalin wuxuu yidhi anigoo sooman baan xaaskayga iska jimaaci jiray buu yidhi isagoo reer baadiya war shahwo badana oo reer baadiya waa taadan waa gaajaysan tahay dadkii naf baa hayse adoo weliba soomaba haddana jimaac samaynaysa adoo baadiya joog markaasuu maba mooday inuu jimaaca soonka iga jabiyo marka dad baa jahligu heerka ka marayaado intay cuntadii cabitaanka iska ilaaliyaan xaaskoodii jimaac iyo galmo la samaynaya taana lama ogola iska ilaaliya jimaaca wuu jabiya qaar baan garanayn hadda salaada markay galaan qaar baan garanayn salaada waxa jabiya maalin nin xaramka ku tukanaya sheekh baa nooga sheekeeyay wuxuu isagoo xaramka ku tukanaya oo salaadii lagu jiro taraawiix buu timir buu la soo baxayaa buu yidhi bac yar buu halkan timirtii kusoo gurtay timirtii magaalada madiina markaasuu marba xabad afka gashanaya ninkii ku xigay baa marba jug siiya gacanta suxulka markuu jug siiyaba 4 xabuu soo saaraa markaasuu dhaa war ha cunde haddii gaajo ku hayso maxaad ii jugeynaysa salaadii hadalka uu hadlay uma haysto inuu salaada ka jabiyo timirta cunayana uma haysto inay salaada jabiso saa darteed waa inaynu ogaanaa wixii soonkeena jabinaya galmada soonka way jabisaa iska ilaaliya salaada adoo ku jira haddaa wax cuntana cuntadii waa kaa jabinay adigoo sooman haddaa wax cuntana soonkii waa kaa jabaya galmadana way jabisaa iska ilaaliya xaydka haddii gabadha ku dhaco iyadoo soomanayd dhiiggii caadada ku dhaco soonkii waa ka jabay maalintaa waa inay dib ka soo qallayso haddii maaragtay dhiiggii dhalmada ku yimaado ay umusho soonkii waa ka jabay haddii qofka diintii ka baxo oo shay gaalnimo ku dhawaaqo soonkiina waa ka jabay islaamnimadiina waa ka burta waa inuu dib u soo ashahaato ilaa dad baa jira iyagoo sooman diinta caaya waa gaaloobeen soonkiina waa ka buray waa inay soo ashahaataan ama ilaahay caayay ama nabiga caayay calayhi salaatu wasalaam qofkii diinta hadduu ka baxo waa inuu soo ashahaato soonkiina waa ka jabay waxaa jira waxyaabo qofku cuntadii cabitaanka kaga maarmayo sida faleenbada oo kale iyo soonka waa jibinaysa haddaad tiraa cunto cuni maayo cabitaan cabi maayo laakiin xabad faleenbaa baan isku xidhaya soonkaaga waa bure ilaa cuntadii cabitaanka waa kaga maarmaysa wax allaal wixii caloosha gaadha
oo sanka ama afka lagaga shuban qofka soonka waa ka jebinaya waxa kale oo soonka jebiya si kas hadaa isaga matajiso laakiin hadduu matagu kaa xoog bato oo ku soo dhaafo soonkii kaama jabayo laakiin haddaa adiga gacan isgeliso ama iska matajiso soonkii waa kaa jabay kas isaga matajiso waxa kale oo culimada qaar leeyihiin soonka waxa jebiya toobinka khilaaf baa ku jira culimada qaarna waxay leeyihiin nabigu isagoo sooman buu istoobay marka toobinku ma jebinayo qaarna waxay leeyihiin toobinku uu jebinayo waxa kale oo soonka jebinaya qofka isagoo sooman in dhiig lagu shubo dhiiggaasina uu ka jebinayo waxa kale oo soonka jebiya qofku inuu taradud ka shakiyo niyadii soonka ma xidhatay mise maada xidhan soonka ma xidhatay mise ama uu dhaho ma jebisa mise ma iska daysa soonka maanta ma burisa ma iska afurtaa mise haddaama saa tirahdo niyooto bes soonkaagu waa buri waa inaad go-aansato inaad soomayso bes laakiin intaad tirahdo talo ma jebiya talo ma sii wata qalad weeyaan waxa kale oo karaahiye ah ama culimada qaarna leeyihin soonku waa buriya sigaarka wuu buriyaa bay leeyihin qaarna waxay leeyihin ma buriye sigaarku qiiq weeyaane cuntana maaha cabitaanna maahe waa dembi iyo xaaraam laakiin ma burinayo qaar baa saale qaarna waxay leeyihin sigaarku waa burinaya waxaa kaloo soonka burinaya qofku inuu maaragtay gacanta biyo iskaga keeno ama uu sigeysiga waxay dhahaan midigteedaan maalaya may dhahan waxbay dhahaan dhalinyarada midigteed macaanay iyo waxbay dhahaan marka waxa weeyaan haddii midigta qofka ama bidaxa isticmaala hadduu biyo iska keeno gacanta isku taataabto xubinkiisa taranka soonkii waa ka buray haddii maaragtay qofka waxyaabaha waxba yeelayn maaragtay waxaa ka mid a matalan dhunkashadoo kale ninka hadduu xaas leeyahay xaaskiisa waa dhunkan karaa gabadh hadday tahay oo kale cuntadii ay dhadhamiso oo intay dhadhamiso ay iska tufto way u bannaan tahay waxba ma yeelaysa soonkii ilaa cuntadii waxay hubinaysaa maqadhaadh baa macaan baa inta dhadhamisay tufaysaa ma liqayso cuntada la dhadhaminaya waxay la mid tahay luqluqashadoo kale biyahaba intaa ku luqluqato waa tufta marka waxa weeyaan dhunkashadaasi soonka waxba ma yeelayso cunto la dhadhamiyey soonka waxba ma yeelayso waxa weeyaan 3 shardi baa jirta marka soonka qofku markay ka jabayso waa inuu ogyahay horta shaygan inuu soonka jabiyo oo hadda odaga miskiinka oo yidhaahdo xaaskaygan u galmoon jiray mana ogeyn inay iga jabiso soonkiisii kama jabin sababta waa jaahil waa loo cudur daaraya marka qofku marka soonku ka jabayo waa inuu waxaan ogyahay cilmi u leeyahay inuu soonka jabiyo kow waa inuu waqtiga haddana ogyahay inay waqtigii soomka ay tahay oo xilligii rasuulka waxa dhacday alayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ah ma intuu 2 dun soo qaatay dun madow iyo dun cad buu barkinta ag dhigtay markaasuu wuxuu fiiriyaa 2 dun inay ta kala cadaanayaan ilaa inta qoraxdu soo baxaysay oo dhan cuntadu iska cunay rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam dunta lagama wado 2 dun is ag dhigtay waa beriga laga wada haddii waagu bariyo waxba lama cuni karo markaas marka waqtigii hadduu jaahil ka yahay waqtiga waa loogu cudur daaray waa inuu qofku haddana xasuusan yahay wixii oo qofka hadduu is hilmaamo ama wax cuno ama wax cabo soonkiisi waa u jira oo rasuulkeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam qofkii intuu wax cuno ama wax caba oo is hilmaama ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey soonkiisa dhammaystiro kan saddexaad waxa weeye qofku inuu shaygan doortay oo ikhtiyaarkiisa ku sameeyey adigoo sooman haddii xabad inta dhafoorka lagaaga qabto lagu dhaho hadda afur biyaha cab haddii kale waa ku dilina biyihiina waa cabaysaa soonkiina kaama jabayo ilaa waa lagu khasbay naftaadii baa badbaadinaysa dadka cudurdaar kale bisha Ramadaan waa qofka buka cudurdaar buu leeyahay wuu iska afuri karaa markuu caafimaad soo qaleynaya qofka musaafirka ah wuu iska afuri karaa markuu safarka dhameysto ayuu soo qaleynaya gabadha dhiigga dhalmada ku dhacay oo mushay way iska afuraysaa way soo qaleynaysaa gabadha xaydku ku dhacay maalmaha xaydkii caadada hayso maartay way iska afuraysaa dib bay ka soo qaleynaysaa odayga weyn iyo habarta weyn oo aan soomi karayn iyaga qof bay afurinayaan oday weyn hadduu jiro oo aan soomi karayn ama xanuun buuba qabaa qofkii oo xanuunkii lama soomi karo ama da' buu qabaa da'dii lama soomi karo wuu iska qof buu afurinaya maalin walba habarta weyn iyo maartay islaanta weyn odayga weyn iyo islaanta weyn qofka uur kalena waa waxa weeyaan iyada waxa laga rabaa markay uu musho ka bacdi inay dib ka soo qalayso naagta nuujinaysana dib bay ka soo qalaynaysaa qofka hadduu u baahdo inuu marka qof badbaadiyo matala adiga waad sooman tahay laakiin qof baaba ceel ku dhacay qofkii intaad wax cunto oo xoog yeelato mooyaan ma badbaadin kartid qofka dartiisa marka wuu afuri karaa qofkii intuu cuntadii cuno buu qofkii soo badbaadinaya markaana dib buu ka soo qalaynaya marka qofka cuntada markuu bixinayo 2 arrimood buu samayn karaa qofka waa yeelka ama maarata xanuunsan oo aan soomi karayn hal habeen buu 30 qof afur u sameynaya ku filan markaas ama muxuu sameynaya habeen walba qof buu afurinaya ama hal qof buu bisha dhan afurinaya labadaas buu u bannaan tahay waxyaabaha aan soonka burinayn waxaa ka mid ah indha kuusha waxaa ka mid ah maarata daawada lagu shubto indhaha waxaa ka mid ah maarata daawada dhagaa lagu shubo waxaa ka mid ah ilig qofka inuu iska saaro waxaa ka mid ah dhiig inuu qofku iska qaado dhiig malaria wax la mid ah waxaa ka mid ah dhadhamadii cuntada la dhadhaminayay yacni bahashi luqluqashadii baa ka mid ah waxaa ka mid ah qofkii oo nabar iska daaweynaya oo dheecaan iyo dhiig uu ka yimaado waxaa ka mid ah qofkii oo cadaynaya afka dhiig inuu ka yimaado waxaasoo dhan soonka ma burinayaan
cadarkii qofku ismarinaya baarafuumkii soomkii ma burinayo unsi aashadatay soonkii ma burinayo qubayska labada gelinba haddaa qubaysato soonkii ma burinayo candhuufta aad liqdo soonka ma burinayso koolgeed haddaa ku cadeeto soonkii ma burinayso arrimahaasna soonka ma buriyaan ilaahay subxaana watacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo kuwii bisha rabadaan sooma oo loogu dambi dhaafo allah inaga dhigo dembigeen iyo dembiga waalidkeen allah ha dhaafo ilahay nabadgelyo caafimaad hayna siiyo acmaasha saalixa aynu samaynayna iyo soomkaba ilahay jannada haynagu geliyo cadaabkana haynaga badbaadiyo wajazaakum allahu khayr